bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedii afraxood in la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad waddanka TV ku daawan doontaanna waxa ugu dooroon dal muslim ah oo kaalmadii ugu horreeyay u diray dalka Ukraine Taliban oo war lama filaana ka soo saartay duulaanka Ruushka arrin aan iskeenaynin oo ku jirta dawladda Ruushka oo qorshe naxdin leh ugu tala gashay meydka askarta uga dhimatay Ukraine Turkiga oo jawaab ka bixiyay codsi dhex istaajin kara colaadda Ruushka iyo Ukraine muxuu dhigayaa heshiiska Motrikas oo la qoray 86 sano ka hor iyo dagaalka Ukraine oo galay maalintii labaad haddaba waa sidee caawa xaalku qodobadaasi qodobo kale ayaa waddanka TV ku daawan doontaan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 25 Febraayo sanada 2022 imikana u diyaar garooba iyaga oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar waddanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana ha naga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore bisha cas ee Turkiga ayaa gargaar bini'aadanimo u diri doonta Ukraine si ay uga jawaabto baaq taageero ah oo ay soo saartay laanqeyrta cas ee Ukraine si ay u caawiso dadka ay saameeyeen dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka socda Ukraine waxaan u diraynaa kolonyo gargaar bini'aadanimo ah Ukraine si wax ay uga qabtaan baahiyaha asaasiga ah ee degdega ah annagoo kaashanayna laanqeyrta cas ee Ukraine Krim Kinik madaxa hay'adda samafalka ayaa ku yiri Twitterka tahay kooxda Taliban ee ka arimisa dalka Afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay Ruushka iyo Ukraine ay ugu baaqday in ay colaadda iyo weliba gacanka hadalka joojiyaan oo ay adeegsadaan habab silmi ah Cabdulqahar Balqani afhayeenka wasaaradda dibadda Afghanistan ayaa sheegay in dalkiisa uu si dhow ula socdo xaaladda isagoo cambaareeyay duulaanka Ruushka oo ku qaaday Ukraine taasoo sababtay waxyeello rayid waxa ay Taliban ku baaqday in wadaxaajood la galo si loo baajiyo dhibaato kale oo rayidka soo gaarta imaarada islaamiga ah ee Afghanistan iyada oo raacaysa siyaasadeeda dibadda ee dhexdhexaadnimada ku dhisan waxa ay labada dhinac ee hardamaya ugu baaqaysaa in ay wax ku xaliyaan wariiqooyin nabdoon ayaa lagu yiri bayaanka isagoo ku baaqay in la ilaaliyo qaxootiga dalkooda iyo weliba ardayda Ukraine ka joogta bayaanka Taliban ayaa walow uu bisayl badani ka muuqdo meesna dad badan ka yaabiyay maadaama ay muddo dheer dhibaateynayeen rayidka Afghanistan iyagoo dalkaasi qabsaday bishii Agoosto 2021 wahagaag ciidamada Ruushka waxa ay diyaariyeen agabka meydka lagu gubo oo guurguura oo lagu isticmaali karo asturaadda meydka askarta uga dhimata dagaalka kala dhaxeeya Ukraine waxa uu wasiirka difaaca Ingiriiska uu ku tilmaamay mid naxdin leh muuqaal la faafiyay ayaa muujinaya muuqaalka baabuur lagu rakibay agabka meydka ee lagu gubo kaasoo uumi bixinaya hal meyd markiiba lana arkaya isagoo daba socday kolonyo ciidamada Ruushka ah lana filaya inuu la socdo dhammaan ciidan kasta oo soo galay Ukraine Ben Wallace oo ah xogayaha difaaca UK ayaa soo jeediyay adeegsiga nidaamkan oo kale in uu noqon karo hab Kremlinka uu ku daboolo khasaare kasta oo dagaalka ah oo mustaqbalka ah isagoo ka baqaya in ay dib u soo celiso dhaleecayntii uu dalkiisa kala kulmay markii ugu horeysay ee Ruushku soo galay Ukraine 2014 Mr Wallace ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ee loo diray Ukraine aan la siinin ixtiraamkii ay mudnaayeen maadaama aan meydkooda loo celin doonin qoysaskooda iyo weliba dadkii jeclaa balse la qarin doono sawirka ay soo bandhigtay wasaaradda gaashaandhigga UK waxa ku qoran qoraal sheegaya in agabkani uu burburin karo wax kasta oo ah haraaga noolaha lagana keenay shirkad Sterba ku sugan oo la yiraahdo Tourmaline kaasoo ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalo arintani ku saabsan oo uu weydiiyay The Telegraph wahagaag Turkiga ayaa ka soo jawaabay codsi ay u jeedisay Ukraine oo ku saabsan in markiiba dagaalka ee Ruushka ay ka xiraan marinka ee loo yaqaano Bosphorus iyo weliba Dardanelles danjiraha Ukraine ee u fadhiya Ankara ayaa Turkiga ka codsaday in maraakiibta dagaalka gaar ahaan raxanta badda madow ay ka xiraan in ay u kala gudbaan Black Sea iyo weliba badda dhexe ee Mediterranean-ka maadaama ay ku qasban yihiin inay Turkiga dhex maraan waxaan dalbanaynaa
doonaynaa in ruushka laga xidho marinka ee dardanes oo la cunaqabateeyo ayuu yidhi fasil bonder wasiir dibadeedka turkiga mevlut cavusoglu oo goor dhoweyd la hadlayay warbaahinta isagoo ku sugan kasakhistan ayaa sheegay in uu ka fikirayo codsi rasmi ihi oo ka soo gaaray ukraine balse uu jiro heshiis la yidhaahdo metricos convention oo ay tibixiyihiisu ay cad yihiin sida uu sheegay cavusoglu kaasoo dhigaya in ay turkiga dalalka ee dagaalsan dhexdooda amaba isaga la dagaalsani ay ka xiri karaan marinkan balse ay tahay inuu fasaxo haddii ay yihiin maraakiib u noqonaysa saldhigyadooda metricos oo la siixay 1936 ayaa turkiga sidoo kale xaq u siinaya inay marinkaasi ka xidhaan maraakiibta ganacsiga ee dalalka isaga la dagaalsan sidoo kale marka ay labada dal dagaalsan yihiin waa in ay ankara arrintaasi horta dagaal rasmi ah u aragtaa si ay labadooda uga xirto marinkaasi madaxweynaha ukraine volodymyr zelensky ayaa sheegay dagaalka Ukraine ka bilowday Khamiistii in ay ku dhinteen 137 qof oo isugu jira ciidamo iyo dad rayid ah. Volodymyr oo fariin muuqaal ah warbaahinta la wadaagay waxa uu sheegay Ruushka inuu doonayo inuu siyaasad ahaan baabi'iyo Ukraine madaxweynaha dalkana uu qaarijiyo. Militariga Ukraine ayaa sheegay in istiraatiijiyada Ruushka ay tahay in ay isku hareereeyaan caasimadda Kyiv iyagoo ka sameynaya wadda dhulka ah oo ku tiirsan xeebta badda madow. Ciidamada Ukraine ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday ciidamada cirka ee Ruushka oo qabsaday garoon dayuuradeed oo 15 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan Kyiv. Shacabka ku nool caasimadda ayaa xalay ku baryay dhufaysyada iyo weliba dhismayaasha hoostooda si ay uga gaashaantaan duqaymaha dhinaca cirka ah ee ay ciidamada Ruushka magaaladaasi ka fulinayaan. Kumanaan shacab ah ayaa u qaxay dalalka dariska la ah Ukraine iyagoo ka cabsi qaba in ay waxyeelo ka soo gaarto dagaalka dalkooda ka socda. cadowgu bartilmaameedka koobaad waxa uu ah aniga halka bartilmaameedka labaadna uu u yahay qoyskayga ayuu yidhi. waxa uuna madaxweynuhu sheegay isaga iyo qoyskiisaba in ay ku sugan yihiin caasimadda Kyiv inkastoo faahfaahin intaasi dheer uusan ka bixinin. danjiraha Ukraine u fadhiya dalka UK Vladimir Besakona wadamada reer galbeedka iyo weliba gaashaanbuurta NATO waxa uu ugu baaqay in ay qaadaan tallaabooyinka wax ku oolka ah oo looga hortegayo waxa uu ugu yeeray dagaalka gardarrada ah oo ay Moscow ku soo qaaday dalka Ukraine. danjiraha Ukraine u fadhiya Washington DC Oksana waxa ay beesha caalamka ugu baaqday cunaqabateeno hor leh in la saaro Ruushka taageero militarina lala gaaro dalka Ukraine. warku waxa ay sheegayaan in ciidamada gaashaaman ee Ruushka oo ka soo dhaqaaqay gobolka Crimea ay dagaalka ka sameeyeen horumar degdeg ah. militariga Ukraine ayaa sheegay in tobaneeyo taangiyada Ruushka ah la burburiyay. sidoo kale diyaarado helicopter ah iyo diyaarado dagaalna ay soo rideen. kumanaan shacab ah oo ka cabsi qaba in dagaalka dalkooda ka socda waxyeelo ka soo gaarto ayaa u qaxay wadamada dariska la ah dalkaasi iyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka dalkaasi. caasimadda Kyiv oo laga dhaqangeliyay bandow habeenkii ah xarumaha tareenka waxaa gabaad ka dhigtay kumanaan shacab ah oo guryahooda duqaymaha uga soo cararay. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo difaacay dagaalka uu dalkiisa ku qaaday Ukraine ayaa sheegay in uu u banaaneen waddo kale oo ku difaaci karay dalka Ruushka oo aan ahayn inuu dagaal qaado. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in duqaymo dhanka cirka iyo weliba gantaalaha ah lagu garaacay in ka badan 80 saldhig oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine maalintii ugu horeysay ee dagaalka. Moscow waxa ay sheegtay in bartilmaameedyada ay ka mid yihiin saldhigyada cirka, xarumaha taliska, saldhigyada raadaarka iyo nidaamka difaaca gantaalaha. Ruushku waxa uu sheegay in ay soo rideen 4 dayuuradood oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Ukraine iyo 4 dayuuradood oo hubaysnaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay dagaalka uu Ruushku waxba uusan kula harin oo ku qaaday Ukraine in ay waxyeelo ba'an ay u geysanayso shacabka Ukraine ayna dhici karto dagaalka inuu sii ballaarto kadibna uu saameyn xooggan u geysto amniga guud ee qaaradda Yurub. waxa uuna sheegay dalkiisa iyo xulafada NATO in ay qaadayaan tallaabooyin Ruushka ka dhan ah oo kaga hortagayaan dagaalka gardarrada ah oo uu ku qaaday Moscow. ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay ka fiirsanayso sidii loo eri lahaa danjiraha Ruushka u jooga
new zealand. jasinda waxa ay intaasi ku dartay laga bilaabo khamiistii inay xayiraado dhinaca socdaalka ah ay ku soo rogtay mas-uuliyiinta ruushka ee xiriirka la leh dagaalka ay moscow ku qaaday ukraine, meeshana ay ka saartay dhammaan xiriirkii dalkeeda oo uu la samaynayay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka. new zealand waxa ay sidaasi oo kala joojisay wax soo saarkii dalkeeda ee loo dhoofin jiray ruushka oo ay isticmaalayeen milatariga iyo sirdoonka ruushka. dalalka jabaan iyo australia waxa ay ku soo biireen dalalka cunaqabateennada ku soo rogay ruushka. cunaqabateennadaasi oo ay si gaar ah ugu bartilmaamsanayaan siyaasiyiin iyo shakhsiyaadka go'aaminaya go'aanada siyaasadeed ee dalkaasi. ra-iisul wasaaraha australia scott morrison waxa uu sheegay cunaqabateennada dalkiisa oo ku bartilmaamsanayo ruushka inuu sii ballaarinayo. ra-iisul wasaaraha jabaan fumio kishida waxa uu sheegay inuu dalkiisa uu ruushka cunaqabateen uu kaga soo rogay 3 qaybood oo la xiriira agabka military oo uu dalkiisa u dhoofsiin jiray dalkaasi. jasiiradda Thailand waxa iyaduna sheegtay in ay ku soo biirtay wadamada dimuqraadiga ah ee ruushka uu ku soo rogay cunaqabateennada, inkastoo cunaqabateennadaasi waxa ay yihiin ay faahfaahin ka bixin. jamhuuriyadda Lithuania oo ku taalla bariga fog ee Yurub waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay difaacdo waxa ay ugu yeertay dalkeeda hooyo ee Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga UK waxa ay sheegtay ruushka in uu weli gaarin hadafkii siyaasadeed uu ka lahaa dagaalka ballaaran oo maalintii shalay ahaa ku qaaday dalka Ukraine. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay ruushka inuu qabsaday xarunta nukleerka ee Chernihiv, iyadoo ciidamada ruushka ay qafaasheen dhammaan shaqaalihii xaruntaasi ka shaqaynayay. dowladda ruushka ayaa ka hortagtay mudaharaadyo baahsan oo ka dhacay guud ahaan ruushka, kuwaasoo looga soo horjeeday duulaanka lagu qaaday Ukraine. kooxda dabagalka xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 54 magaalo oo lagu xiray ku dhowaad 1800 oo ruux, magaalada Moscow oo keli ahna lagu xiray 900 oo qof. waxaa sidoo kale baraha bulshada lagu faafiyey cambaarin loo jeedinayo ruushka oo dagaalka ka dhanka ah. mudaharaadyo looga soo horjeeda duulaanka ruushka ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyinka caalamka. boqolaal mudaharaadyaal ah oo mudaharaad ka dhigay magaalada New York, iyadoo mudaharaadayaasha qaarkoodna ay ruuxayeen calanka Ukraine. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. inta aynu ka gaarin warkayaga xigana waxaan inkaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.